بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا الشانل كيغا موقع كمانتا وبلوغا كورسكي كومبليت ووردبريس ويب سايت. عشركينا كوبادنا وحين كودغانينا ديزاين غرينتا ويب سايت بورتفوليو. ان شاء الله كوا كلنا مقالات دبين كيغي دونا سيده كوربريت بلوغ اي كوميرس اي ريل استيت. حتى الشانل كيغا كوسبتاغا كعاوسين سبسكرايب سارتو موقع كان لا غريسو تينان بلابين ديزاين غرينتا وحين دونينا ان كهادلو marka aan doonayo inaan website ku dhisto WordPress waxaan u baahanahay waxa aynu u baahanahay toolkii aan isticmaali lahayn u baahan kow waxaad u baahan tahay server laba waxaad u baahan tahay WordPress files saddex waxaad u baahan tahay browser saddexda haddii aad internet haysto way fiican tahay oo inaad resource kala soo degdegto ama aad soo downgrade waxaad u baahan tahay marba theme customization fara badan aad samayso ama different themes aad wax weeyaan eegto laakiin inagu website-kan dhisnaa waa qorshaysan yahay sidaas awgeed saddexda shay baad u baahan tahay saddexda shay xagaad ka helaysaa serverka waa laba waa online server iyo local server ayaynu website-kiina koobaad ku dhisinaa marka aynu dhamaystirno design-ka ayaynu server online dhigaynaa oo domain iyo hosting u iibin doonaa waxaad u baahan tahay local server-ka aan u isticmaalayo ayaan ku dhisayno website-ka waxa weeyaan sham local server waxaad ka helaysaa linkiga description-ka yaala linkiga raac soo downgrade waa free sidoo kale waa offline internet kuma shaqeynayo waxa weeyaan computer-ka ayaad ku shubanaysaa steps-ka aad ugu shubaysana waan ku tusayaa WordPress files iyadana linkigeedu wuxuu yaalaa description-ka linkiga raac waxa weeyaan la soo deg waa free iyaduna lacag ma aha sidoo kale waxa weeyaan waa offline oo internet iyadana uma baahan browser-ka computer walba waa la socdaa sidaas awgeed aan waxaan isticmaalayaa browser-ka la yiraahdo Chrome waa inaad la soo degtaa oo kala soo degtaa browser-ka computer-ka ku jira haddii Windows ku jiro Microsoft Edge ayaa si default ah u socda Microsoft Edge-ka Chrome ku qor soo downgrade tan Microsoft Edge isticmaashana wax dhibaato ay kuma jirto okay haddaba sidee ayaan u install gareynaa saddexda shay markaad soo hesho sidaan ayaad u install gareynaysaa dhamalkayga ayaad oranaysaa marka hore dhamalkayga markaad tiraahdo yes baad oranaysaa yes marka aad tiraahdo halkan foomka yara ku soo baxa okay baad ku dhaafisaa dabeedna waxa kale baa wada nagasti waxba ka beddelmaysid nagasti haddana nagasti wuxuu diyaarinayaa installation-kii ama computer-ka ayuu ku shubayaa fileskii aynoo dhammaado marka sida kuugu dhamaado oo inoo dhamaado imika waxaad sameynaysaa waxaad search garanaysaa kan hoose ayaad ka search garanaysaa sham markaad ka search garayso open ayaad oranaysaa open marka aad tiraahdo waa kan kuu soo furmay ka ugu sareeya waa Apache start baa hortiisa ku qoran click baad siinaysaa start ma bilaabmaya ka ku xiga waa MySQL kaasna start baad oranaysaa markaad labada start tiraahdo MySQL ka hortiisa waxaad u baahan tahay inaad database soo samaysto database ayaad soo samaysanaysaa tina database ka soo samaysanay baa aynu eegno sida uu isagu inoo amrayo in database soo samaysano sameeyna WordPress files-keeni ayaynu dhex dhigaynaa local hostiga ama waxa weeyaan sham sideen u hoos dhigaynaa local WordPress files-kaaga oo ka raar ku xidhan yahay waxaad leedahay copy garaysanaysaa waxaad tagaysaa file explorer-kaaga ama waxa weeyaan halka file explorer-ka this PC ayaad ku dhufanaysaa dabeedna drive-ka C ayaad dhex gelaysaa drive-ka C markaad dhex gasho waxaad ka dooranaysaa folder-ka ay ku qoran tahay sam marka aad waxa weeyaan ku soo qorto sam markaad soo dhex gasho waxaad ka sii dooranaysaa folder-ka ay ku qoran tahay htdocs waxa dhex yaala faylashan hadda baan ka delete gareeyay dhammaantood waa iska delete garanaysaa dhammaantood markaad iska delete gareyso waxaad ku paste garanaysaa WordPress fileska markaad ku paste gareyso waad extract garanaysaa looma baahna raarka waad ka saaraysaa raarka extract here markaad tiraahdo dhammaan waxa weeyaan waxaad oranaysaa extract folderkaas ayuu noo sameynaya folderka isna uma baahnin ee waxaan u baahanahay faylasha ku dhex jira marka faylasha ku dhex jira ayaynu ka qaadanaynaa labadanba waan iska delete gareyn doonaa kan raarka wata iyo labadaba maadaama aynu website kaliya ku dhisayno haddii aad website labaad ku dhisayso waxa la doonayaa inaad waxa weeyaan folder baad sameynaysaa labada website mid walba folder baad sameynaysaa magac baad ku qoraysaa dabeedna faylasha aynu imika waxa weeyaan inagu halkan folder la'aanta ku dhigayno ama folder la'aanta aynu ku dhigayno kaligood dhigayno ayaad mid walba dhex dhigaysaa dabeedna mid walba magac baad sameynaysaa wuu inoo dhamaaday kan raarka wataa daba inaga dhigad kare kana dhexgal markaad dhex gasho fileskan baa kuu soo baxaya fileskan baad wada qaadanaysaa fileskan markaad qaadato waxa weeyaan waxaad oranaysaa copy markaad tiraahdo waxa ku noqonayaa halkan oo htdocs oo folder-kan dhex yaalo folder-ka WordPress-ka uu dhex yaalo waxaan oranayaa bast faylashii waxay imanayaan halka dabeedna waxaan iska delete gareynayaa ka folder-ka WordPress-ka baan delete gareynaya waayo ma baahni waxaan u baahanahay kaliya faylashii halkaas ayay yimaadeen kan ayaan delete gareynaya iga delete garey ka
okay marka aan saa u soo dhex dhigo waxaan sameynayaa browserkayga ayaan soo furanayaa browserkayga marka aan soo furto waxaan sameynayaa browserkayga ayaan soo furanaya browserkayga marka aan soo furto waxaan search garanayaa local host marka aan search gareeyo waa local host keliya search baan oranaya wuxuu leeyahay WordPress setup configuration ayaan bilaabaynaa WordPresski ayaynu install garaynaa ku install garaynaa local hostigeena marka luqadii waxaa ka dooranaysaa luqadda United States English United States ka doonaysaa continue baad leedahay continue marka tiraahdo formkan buu ku saarayaa formkan shaqo ku diraya shanta shay soo sameey buu leeyahay shanta shay waxa laga sameynayaa MySQL oo kan ah MySQL oo kan ah ayaa laga sameeyaa wanagii soo shidnay labada kan ayaa laga sameeyaa MySQL kan baa laga sameeyaa aniga laba jeer buu furan yahay marna isticmaalay kaan waa iska xiraya kan markaan joogo halkan ayaa laga sameeyaa halka MySQL ka hortiisa admin aka stop baa imka uu shidan yahay stop oran maayo admin baan click siinay admin ayaan click siinaya wuxuu ii keenayaa meesha aan ka sameysan lahaa log database-ka user account-ga iyo waxaas oo dhan meesha aan ka sameyn lahaa ribbon-ka waxaan ka dooranayaa user accounts dabeedna waxaan ka sii dooranayaa halka dhexda add user account markaan yiraahdo username baan gelinayaa halka username-ka markii aan geliyo halka waxa weeyaan waxaan ka dhigayaa kaasaan ka dhigayaa markaan ka dhigo halkan hostiga ayaan ka dooranayaa local host waan leeyahay waayo waxaan isticmaalinay local host wiiga dhigay password baad u sameyn kartaa laakiin anigu waxaan u dhaafayaa no password ha generate wax gareyn waayo password adag buu noqonayaa waxa laga yaabaa inaad ilowdaba aad waxa weeyaan hadhowta aad si sax ah u gelin weydo halka ay check ku qoran tahay ama check all ku qoran tahay tigta ayaan saarayaa kuwan oo dhan dabeedna waxa weeyaan tigta ayaa saarmaysa dabeedna waxaan oranayaa go host baan u digayaa halkay go ku qoran tahay ee ugu hooseysa ayaan go oranayaa waxaan sameysanay user account waxaan sameysanaynaa ku xogsiinaynaa database halka user account ku qoran tahay database baa dhinaca ka xigta oo geeska database-kaas ku dhufanayaa marka database name markay ku qoran tahay waxaan gelinayaa magaca database-kayga markaasaan geliyay wax kala sameyn maayo create ayaan oranayaa xilliga database-kan waa jiraa waa runtii waa kaalkan ka muuqda waa uu jiraa mid kale ayaan sameynaa best database-kaas ayaan sameeyay create ayaan oranaya database-kii waa ii sameysmay wax allaale iyo wax kale aan ka qabanaya ma jirto waan iska soo xiraya maaha waan istaajinaya halkan dabeedna let's go baan oranaya waxaan kusoo noqonayaa WordPress setup configuration-kii dabeedna waxaan oranayaa let's go macluumaadkii database-kayga ayaan halkan gelinayaa database name-kii wuxuu ahaa best ayuu ahaa username-ka wuxuu ahaa kan ayuu ahaa password uma soo sameynin local hostigana waxaan soo dhigay local host table prefix-ka marka aad website-ka dhisayso WP uu automatic qaadanaya run installation formkan lama ayuu inoo soo saarayaa formkan waxaan ku qoraynaa halkan waa website-ka magac u bixi buu leeyahay website-ka magacaas ayuu bixiyay wuxuu leeyahay oo kale waxa weeyaan username u sameeyo website-ka ama waxa weeyaan website-ka users baa u yeelan doona username-ka aniga u sameeyay kaas username-ka gelinaya password u sameeyo leeyahay website-kan password baan u sameynayaa password-ku inuu ahaado mid adag haddii aanu mid adag noqonin waxaad tigta saaraysaa halka ay ku qoran tahay waxa weeyaan confirm use of weak password tigta markaan saarno wuxuu naga aqbalayaa inaan password-ka jilicsan isticmaalo marka waan socon karaynaa halka email-ka ayaad gelinaysaa email ayaad gashanaysaa halka okay install WordPress baan leenahay iminka waxaa laynoo install gareynayaa ugu dambeyntii WordPress-ka ayaa laynoogu install gareynayaa local hostigeena dabeedna website-ka dhismihiisa ayaanu bilaabi doonaa log in haddaba website-kaagii gal username-kii ku gal username-kii iyo password remember me ayaan tigta saarayaa log in ayaan oranayaa haddii ay khaldan yihiin password-kii username-ku ma geli wanaad sax wuxuu ii keenay dashboard-ku waa meesha aad ka maamulayso website-ka ama waxa weeyaan website-ka si aad u aragto dhisankiisana halkaas sare ee waxa weeyaan guriga iyo magacii website-kaagu ay ku qoran yihiin ayaad ku istaagaysaa visit site buu kuu soo qorayaa waxaad doonaysaa open link in new tab haddii aad iyada click siiso adigoo aan open link in new tab oranina waa caadi bartaas buu wax ku soo saaraya website-kaagii anigu laakiin waxaan doonayaa in tab cusub uu soo furo waayo halkan waan ka shaqeynaya website-ku waa sidan buu website-kaagu website-kan ka raacnaa waa kan sayno marka koobaad maxaan waxaan qabanaynaa theme-ka ayaynu ka bedelaynaa website-keena saynu uga bedelaynaa waxaan tegaynaa appearance dabeedna waxaan ka dooranaa themes add new baan oranaa internet hastaaq baad ka search karnaa doontaa magaca theme-ka haddii aad haysan isagoo fayla telegram ninka waxa ka hooseeyo wasanka wixii ah isu dhigi kartaa anigu haq ma ka search garanaya waxaa la yihahdaa Ocean halkan wuu igu jaago activate baan leeyahay
halka waxaa soo qoray activate version register waa plugin activate WordPress skip bas oranaysaa okay halkan baaskaas taabanaysaa soo xidhaysaa website-keeda ayaan eegaynaa soo bedelay qadiimkan ayaan ku shubnay sidaan buu soo baxay waxaan bilaabaynaa designing qaybta ugu sareysa ayaan design garaynaa markaan doonayna qaybta hore ugu sareysa design garayno waxaan tegaynaa appearance na customize baan tegaynaa customize markaan tagno waa laba qaybood oo qaybta options waxaad halkan ka qabato ayaa halkan ka muuqato waa kan qaybta ugu sareysa ee qoraalkaasi ku fadhiyay aynu ku bilaabana hoos baynu tegaynaa qaybta waxaa leedahay tobar baan dooranaa tobar saddexdaa option weeye general buu sii geli general markaan sii galo background colorka ayuu wax ka bedelay background colorku waa blue waa noocan sidaan kaa u helo oo aan waxba u bedelin inaan marba haween uga khaldamo color picker baan doonay ayaan haystaa station color seal ayaa color seal chrome baa ku darso click source color seal oo kaa saa markaad click source colorka aad u soo istaagaysaa ana click baad siinaysaa click markaas ku dhufato ku copy garaysmay okay wuu soo copy garaysmay aqbala imaya dana best baan ku qoraya best waa kaa soo baxay color colorka wuxuu muday naqa muslim تكسر واحد عطان اوكي لبدا شيء بارينك واحد لفتي بارينك واحد لفتي اي واحد دريا يا عسكري كوري شيء توقع بريا اوكي لينك كلرك اي وحويا marka uu soo saarto tobaray soo لا لا يبدو مش راح مش مسارية حسوق ايكن نمبر ايميل ايكن كان سهل يا فونت اويز فونت اويز يعني كده تنو حسوق عليها سيرش اهو دفنيا سيرش ما هو دفتو waxa search gareyn doonaa phone ayaan search gareynaya phone waa soo baxay kan doonaya oo midka ku jeeda waa kan click ma siinay click markaan ku siiyo wuxuu soo saarayaa code ayuu soo saaraya waa kan codekaas buu soo saaray codeka agtiisa ayaa hadana click ku siinaya iyo code garaysmay dabadna halkan ayaa la tegaya contactigii ayaan ku basti garaynaya marka ayuu soo baxay okay waxaan qorayaa numberka caadi baan qoraya +252 okay waxaa yara durki karaa numberka iconka html space code baan isticmaalaya and mbsb semicolon wuu kala durkay ninka saad aragto okay waxaan soo gelinayaa kii labaad oo ah email iconka waxaan oranaya
search gareynaya email haddaan ku qoro iyo haddaan idhaahdo envelope labadaba way soo baxayaan kaasaan click ku siinaya dabeedna click markaas siinaya wuu copy gareysmay halkan baan paste ku siinaya way isku jirsan yihiin marka iyo isagu koodhkaan hore usoo isticmaalay soo copy gareysanaya space sameynaya soo copy gareysto lambarka iyo koodhkan dhexe dhigaya semicolon marketing raaci mar labaad list okay kaas uu tegay waxaan ku qorayaa emailki ab.com das ayaan ku qorayaa spacena waan u samayn karaa oo koodhka aan sito unbaan paste ku oranayaa dabeedna wuu ka go-ayaa okay halkan waa content intaas unbaan ka qabanayna dib baan noqonaa socialka iyo tegnaa socialka markay tagno socialku waa waxa weeyaan iconiska qaado saddexda icon intayn doona ka dhigi karnaa egas baa ugu horeeya haddii aad egas linkigaaga dhigto waa caadi marka aad kliksiiso meesha dhigo egaska taas facebook linkigaaga dhigto laakiin anigu midda dhigi maayo waxaan dhigayaa demo link hashtag ama ads waa isku mid walba way keenaysaa intaan doono ayaan ka dhigi karaa weeyaan million social ayaa waxa weeyaan meesha yaalla halkan waxa weeyaan waa siteskooda wadarta waaweyn baan kasoo dhigi karnaa yareyn karnaa kudibin karnaa 12kaas aan utaqanaya 12ka markaan u daayo kalarkooda iyo kalarka black baan dhigayaa black markaan ka dhigo kalarka hoverka waxaan ka dhigayaa caddaan marka aan saan u istaago caddaan buu noqonaya okay halkana intaa ayaan ka qabanay halkana top barkiisaas aan ku dhameeyey ama shaqaday website-keena ayaan ku tagno refresh nahno top barki baa soo baxay top barka waan sameynay waxaan kuusiinaa headerka qaybta caadiga magacaas ayaan kuusiinaa ayay xageen tegaynaa waxaan ku noqonaa halkan header wataa top barka ay ka samaysaa header soo tan oo qaybood kusoo iyo header soo bax baa laga qabanaya general loogu horeeyo general style header style kadib halkaas soo furto transparent waad ka dhigi kartaa toban waad ka dhigi kartaa fus kale waad ka dhigi kartaa center waad ka dhigi kartaa dhulka ugu sarreeya iyo webtoga website-keena waa transparent iyo transparent ay ka dhigi kartaa marka koowaad waxaan ka bedelayaa background colorka waxaan ka dhigayaa blue ayaan ka dhigayaa bluegaas oo kaa ka yara duwan kaa sare ka duwan xoogaa ka yara duwan okay saasaan ka dhigayaa border bottom color borderka indishii marka hore waa kaa bluega ninkan waxa weeye meesha ka saarnaa borderkaas oo kale ayuu ka dhigayaa okay waxaan oranaynaa kan ninka ayaynu ka saarnaa meesha borderka meesha ka saar okay qoraalkani wuxuu ka soo baxayaa kaas ayuu kasoo baxaya daqiiqa qoraal kalarkooda ayay bedelaynaa markaa meelahaas ku soo baxaya okay dib baan u noqonayaa waxaa leeyahay header media haddaad video haysto oo taallay oo size-kaa qaasa 2000 ilaa 2000 oo pixel aad haysato waad soo gelin kartaa sidoo kale image waad soo gelin kartaa mana soo gelin maayo logo ayaan tegaya logo iyo qoraalkaas ayuu noolaa waxaa ka dhigayaa kalarkeeda tan ayaan ka dhigayaa overkana waxaan ka dhigayaa black ayaan ka dhigaya okay dib baan u laabanayaa menu ayaan soo gelaya menu waxa weeyaan menu waa linkiyada markaa
كذا فاتح. اوكي كلر كود بعد بحنية بينو نيو أساس مثلا داشبورد بنتينا وصف داشبورد سنتين مركان داشبورد كيساتنا نورنا بيجز بنتينا إني يوجينا بيجز كيو سبب البيجز كسنة مش تراش مويا تقولنا سطح بيجز كسنة النيو بيج من عنايا النيو بيج ما خلينا نلاحظه عنايا about me عنايا publish عندنا publish عنايا هكذا النيو باكسو بحث عندنا النيو سيان بوك عصوب هذا سمعيه ولا متكلمات كان واحد عنايا وهون publish بان ليه النيو بان عنايا contact us ayaa ka dhigaya publish baan leeyahay publish baan leeyahay markaan intaa ka jawaabo waxaan tegayaa dashboardkayga waan ku noqonayaa themes appearance baan tegayaa appearance markaa tago menus baan ka dooranaya menus markaan doorto halkaa ay ku qoran tahay menu name waxaan gelinayaa magaca menu one oo kale ayaan gelinaya dadna create menu ayaan ku furaya buttonkaas ayaan ku furaya way ii samaysantay menuga ii samaysan waxaan leeyahay menuga maxaa ka dhigaya menuga pageskayga ayaan ka dhigaa menuga ku daraa mise postis mise custom links mise kuwan waa kale ay kaga hadli doonaa iminka pageskii aan soo samaystay ayaan odhanayaa halkaa iga soo muujiso kuwan pages maaha wax weeyaan custom links iyo wax noocaas ayaan ka hadli doonaa view all baan odhanayaa view all halka waxaad arkaa laba hoob labadan hoob maxay ka mid inagu maynaa soo samaysan inagaa soo samaysan kan aynaan soo samaysanin page maaha waa custom link already waxaan odhanayaa select all art menu waa kaa custom link weeye hoomkaas oo iska saaran uma baahnin remove baan okay saddexdaas ayaa noo soo haray oo install maray oo bay nagu saraysa haddaba xagee ka soo muuqanaya main waa top waa footer mobile wax weeye mobile optimization dhammaystiran la sameeyo waxa weeyaan page kasta waxaa ka soo muuqanaysa automatically main bay dooranayna main waxa weeyaan halkaa top bar waa halkaas ka soo muuqanaya marka top bar ka dhigo okay main bay ka dhigaynaa save menu markaan dhahno halkan bay tegaynaa halkan markaan tagno waxaan sameynaa colorska overka waxnoodaas effect ayaynu ka bilaabanaa linkiis effectigood muxuu noqonayaa effect waxa weeyaan kaad dul istaago saddexdaa dhinac yaa effect layahay okay markaan publishnamid siyaaqay noqonayso
way soo muuqdeen kalarkooda ay xirban soo gelinaa menu bay kusii jirnaa menuga effective aan u sameynaynaa underline baan odhanayaa underline ayaan odhanayaa markaan isdul taago mid ka mid ah hoosta ka xariiq waaqa kalarka xariiqda hoosta maxay noqonaya asaan baan ka dhiganaya asaan baan leeyahay iga dhig asaan iga dhig baan leeyahay okay waxaan imanaynaa main stylingka dhinaca iyo bidixda iyo midigta intay ka soo go'ayaan 50 ka soo go'ayaan waan kordhin karaa horta aan kalar u sameeyo kalarkooda waxaan ka dhigayaa caddaan baan ka dhigaya caddaan ayaan ka dhigaya okay caddaan markaan ka dhigo waxa weeyaan kan waa hoverka ninka waxa weeyaan ayaan ma kordhin karaa okay afar saddex toban baan ka dhigaya hoverka weeye kani hoverkooda waxaan ka dhigayaa madow baan ka dhigaya madow baan ka dhigaya madow ayaan ka dhigaya markaan saa dul istaago madow okay tani waxa weeyaan kalarka ay yeelanayso marba kala joogo niyuga joogo kalarka ay yeelanayso waxaan leeyahay ha noqdo yellow okay ninkii background waxa weeyaan dhammaantood inta ay waxweeyaan yeelaan background u sameeyan kan ahayn u sameyn maayo ninkii background hover backgroundkaas uu yeelan doono marka isdul taago bedeli doono kan waxa weeyaan ninkii background hover kan waxa weeyaan ninkii background current item marba kala joogo backgroundkiisu background baan u sameynaya waxaan leeyahay kala joogo kalarka ah okay drop down waxa weeyaan saddex mid ka mid ah in drop down u sameynaa marka saa u istaago ay soo baxayaan drop down saan u sameynaa waxaan tegaynaa appearance menu baan tegaynaa menu markaan tago waxaan soo sameynaynaa laba shay custom linking baan tegaynaa deedna waxaan soo sameynaynaa halkaa waxaan gelinaynaa demo linking baan gelinaynaa deedna halkaa waxaan gelinaynaa surface add menu baan leenahay add to menu okay halkaa haddana waxaan gelinaynaa demo linki kana waxaan gelinaynaa graphic design ayaan gelinaynaa add to menu baan leenahay okay intaas bay ku koobaynaa waxaanu sameynaynaa surfaceka kan ayaynu hoos u jiidaynaa okay imanka drop down bay sameynay save markaan idhaahno waxa weeye waxaan sameynaynaa publish baynu odhanaynaa deedna refresh okay waad aragtaa surface graphic design uu ah drop down waxaan tegaynaa halkaan joogno waxay ahayd xadhir waxaan joognay menu ayaan joognay okay main statement ayaan joognay drop down ayaan joognay drop downka background kalarka drop down markuu caddaa waxaan leeyahay ka bedel waxaad iga dhigtaa waxaad iga dhigtaa akhtar iga dhig baan leeyahay akhtar noocaa iga dhig baan leeyahay okay top borderku weeyaan waa borderka halkaa
وكلر وحريضة أول حيسة وحويا كلر نواصل مدوين كديك مدوين كديك وكان مدوين كديك أوكي بورر بالمسمى كرنا بورر بالمسمى كرنا بورر كلر كيس واحد كديك كرنا عسان أي كديك أوكي أوكي لينك كلرك ومدو عطان بين كديك وكا لبدو واحد هو فرصة دارته لينك يقول لي جرافيكس إنه هو يقول لي هاي مرخوا عدنا وحنا نستخدم حوالي باك جراوند إنه لي هاي هو وكا لينكي كلر هوفر النوع نيارنا نوع عندنا كديك كنا نوع عندنا كديك كنا نوع ما كديك نوع كديك باك جراوند هو لينكي باك جراوند بعدها current menu تلجوه مربع menu تلجوه نوعنا background لينكي background current menu background كتلجوه مربع نوعنا لينكي background current menu menu تلجوه background كده كنا وحويا color لينكي color current menu حويا color مركز كتلجوه color كسب نوعنا كنا وحويا background كسب نوعنا اوكي هكا وحوي سيرش ايكون display مسكون مش كسر disable بالوان display معها وحين سوى لنا disable اوكي drop down categories دي posts كيوين كوين سوشيالي سيما مركز يقال لنا دبانو لابانيا حتى social media enable بين أوران كرنا وحويا social media اوكي وكون دائما لك يسوق لي اوكي وحويا السوشيال ميديا يعني حويا وفيسبل معها وحين كسوري كمان فيسبل سوشيال ميديا اوكي intaas ayaan ku qabanayna xiriirka dib baynu u noqonaynaa waxaanu dhisan karaynaa imika footarka qaybtaas ayaan dhisan karaynaa qaybtaas inuu dhisan karayno waxaan tegaynaa marka koowaad waxaan tegaynaa footer bottom waxaan tagno qoraalka ayaan meesha ka saaraynaa midaan dhowleynayo qoraa developed baan leeyahay developed ay
details iska horeeya iyo copyright reserve. Okay, waxaas baan iska horeeya. Okay, inta markaan ku qoro farta kalarkeeda iyo backgroundka iyo haddii linkii lasoo gelinayo linki kalarkiisa, linkii waan soo gelin doonaa website-ka leeyahay. waa kan footerkiisu, linkii waa kaa. Okay, waxba ka bedelmayna kalarada, adigu waad ka bedelan kartaa. dib baan noqonaya kalarada yar baan dib uga noqonaya. waxaan tegayaa footer widgets. footer widgets waxaan kasoo baaminayaa inta kooban inuu noqonayo footerkaygu inta kooban noqonayo 4 baan adjust 3 waayo website-keena waa 3. Okay, paddingkii waxa weeyaan topna sida ugu soo gooyin, hoosna sida ugu soo backgroundkiisuna waa kaa. text kalarkiisana waxaa ka dhigayaa caddaan baan ka dhigayaa. Okay, haddii social media soo dhigno aan idhaahdo halkan oo kale aan idhaahdo social media waxaa weeyaan linkiska footerkana kasoo muujinay wadnaha qalbi kala saaraynaa, laakiin oran mayno iminka. markaynu waxa weeyaan kaa intaa ka qabanno waxaan tegaynaa widgets baan tegaynaa. waa 3 ayaan kasoo dhignay 3 column, mid walba waxaa lasoo dhexgelinayaa. intaad soo dhexgelin waxaad u baahan tahay pluginkan waxaa la yidhahdaa install plugin tag, install plugins, classic widget baa la yidhahdaa. classic widget ayaa la yidhahdaa. telegramka ayaan kusoo dhigi karaa haddaad soo xidhiidho. haddii kalena dee plugins baad oranaysaa, new plugins baad oranaysaa, kadibna waa search garanaysaa classic widgets. marka saa install tiraahdo activate garayso, waxaad tegaysaa halkan, dabeedna waxaad leedahay publish, dabeedna waxaad oranaysaa refresh si uu u qaato effectiga. Okay, waxaas waxa weeyaan waa ayka waa socialkiisi weeyaan. heerarka waxaad soo gelin kartaa socialka kuwa khasra aad gelisay halkana waad soo muujin kartaa. inaga inaguma jirto.
widgets markaan tagno waxaan sameynaa ka koobaad weydiinaa أنا widget نروح لنا tags then tags waxaan kasoo qaadanaya Laura Emerson baan kasoo qaadanaya Laura Emerson baan kasoo qaadanaya dibadna halkan baan ku bastigaranaya title baan soo sameynaya titlekeyga waxa weeye about me weeye Laura Emerson inta baan iska soo qaadanaya yar baan soo qaadanaya intaasaan soo kobigaraysnaya dibadna halkan baan ku bastigaranaya halkan ayaan ku bastigaranaya markaa wuu imanayaa dib baan noqonayaa butertu baan tegayaa widget baan leeyahay tags baan ka dhigayaa isagana waxaad ka dhigi kartaa linkiis waxba waad ka dhigi kartaa qaab mid baan linki ka dhigaynaa waxaan ka dhigayaa kana contact info dibadna isagana paste baan ku oranayaa waxaad ku qorta kartaa emailkaaga numberkaaga iyo adresskaaga laakiin anigu dema contactgaas aan isticmaalayaa waxaan oranayaa waxaan oranayaa custom HTML waayo waxaan doonayaa inaan ninkii soo geliyo follow on us halkan baan soo gelinaya markaa HTML code waxaan tegayaa Facebook like box message garanaya waayo waxaan soo gelinayaa Facebook page aan footer ka dhigaya waxaan ka dooranayaa halkan kusoo baxo page plugin markaan kala ku siiyo halkan pageka ayaan gelinayaa URL-kiisa ama linkigiisa marka Facebook baa ku jira waxaan gelinayaa Apple shirkadda Apple la yiraahdo ayaan doonayaa anukeeda Facebook pagekeeda ayaan doonayaa waa kan sizekaan yareyn karaa markaas ayaan ka yareynayaa leeyahay 150 guuleysa iyo 150 maxay tahay dibadna bottomkaas ayaan ku furaya get code oo jira kan saasaan kala gusiinayaa koorka ay soo baxay copy baan leeyahay waxaan la tegayaa halkan paste baan leeyahay haddana waan soo noqonayaa kanna click siinaya copy baan oranayaa dibadna tamar inter hoos u tago ayaan oranayaa paste waa dhammaaday soo gelayaa sawirkaasi intaas ayaynu saddexdaa shay baynu sameynay waxaa inoo harsan in sidebarka meesha ka saarno iyo title pageka saan uga saarana horta inta publish marka aan nahno halkan laga sameyn maayo waxaan tegaynaa pageskeena ayaan tegaynaa pages markaan tagno all pages baa oranaysaa all pages markaan nahno mid walba inta saas fultagtay oranaysaa edit markaan nahno halkaa koonaha saddexdaa shay ama dhowrkaa shay laba goobo oo isku dhex jira ayaad kaligsanaas kadib markaad soo dropdownkaa soo furmay ugu sareeya channelkaada ayaad soo furaysa inshaa dabeedna content layout waxaad ka dhigaysaa 100% full dabeedna bishii waad iska xidhaysaa title baad tegaysaa title meesha waad soo furaysaa display page title disable baad ka dhigaysaa dabeedna iyadana waad iska soo xidhaysaa update waad oranaysaa kaa waad ka jartay sidebarkii iyo waxa weeyaan waxa la yidhaahdo page title-kiiba labadaba waad ka jartay kaa midkaa ayaad tegaysaa
kale ayaad tegeysaa all pages markaad tiraahdo mid kale ayaad contactiga ayaad tegeysaa edit baad doonaysaa edit markaad tiraahdo isna halkii mid lamid ah halkii baad tegeysaa generalka waxaad leedahay content layoutka ayaad doonaysaa waxaad leedahay rules dabeedna title baad tegeysaa title waxaad leedahay display page title disable baad leedahay update okay home baa inoo harsan home edit baynu odhanaynaa edit markaan home nahno waxaan odhanaynaa halkii ayaan soo dhufanaynaa halkii kusoo sameynaa general dabeedna default content layoutka 100% rules dabeedna heshiis ka soo xidh dabeedna title display page title disable dabeedna update iminka waynu ka jarnay baan eegno website-keenu soo noqdo okay haddii aan halkaa tagno gurigaa yar iyo meesha magaca website-keenu ku qoran yahay waynu visit site-ka ku siino waa kan okay home baan ku dhufanayaa home waa page saan kusoo baxaya about me ayaan ku dhufanayaa about businesses contact us baan ku dhufanayaa contact us next surface baan ku dhufanayaa surface isagu waa customer haddaba maxaa jira haddana halka ku dhufta badan okay waynu xalinaynaa waxaan sameynaynaa home pagekaas ayaynu ka dhigaynaa front page waxaan tegaynaa dashboardkeena markaynu tagno waxaan tegaynaa setting readingkaas reading baynu tegaynaa reading markaynu tagno waxaan dooranaynaa static page ayaynu saaraynaa ayaynu dooranayna dabeedna home page waxaan ka dooranaynaa home keliya hoos u teg save baad oranaysaa haddii aan tagno waxay nagu soo baxayaan okay intaas ayay muuqaalkeena ku soo xiraynaa waxaan dhisan garayn doonaa muuqaalka soo socda sectionska waxaan isticmaali doonaa page builder haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar muuqaalkana like garee amaano allah